kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka haynoon halkan idinku soo gudbin doona haddii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a dagaaladii ka socday dalka Itoobiya oo weli sii socda iyadoo maalmihii ugu dambeysay dagaalo waaweyn ay ka socdeen deegaanka Canfarta iyo midka Axmaarada haddaba dagaalkaasi ayaa ku gacan sareeyay dagaalkaasi see halkee uu ka socday goobaha uu ka socdo ayaan idin soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ku dhawaaqay in loo baahan yahay heshiis degdeg ah oo heshiis qaran oo u dhaxeeya dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya wuxuuna sheegay in ra'iisul wasaaruhu sheegay in loo baahan yahay in la soo afjaro dhibaatada ka taagan dalka Itoobiya Getachew Reda oo sheegay isagana waafayeenka ururka TPLF in ay diyaaradaha droniska duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ay waxyeelo ba'an u geysteen dad shacab ah oo ku sugan deegaanka Tigreega wuxuuna sheegay saddexdii maalin ee ugu dambeysay in diyaaraduhu ay fulinayaan duqeymo isdaba joog ah haddaba duqeymadaasi halkee laga fuliyay yaase ku dhintay yaase lala beegtay warkeena ayaad ku maqli doontaan hogaamiyaha Tigreega oo sharaxay sababta ay uga baxeen deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta haddaba sababtaasi maxay tahay sidoo kale warkeena ayaan ku faahfaahin doonaa isbitaalada magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka Tigreega oo iyadana ku dhow in albaabada la iskugu dhufto waxayna dhaqaatiirta waaweyn ee magaaladaasi ay sheegeen in loo baahan yahay in la soo gaaro dadka bukaanka ee jiifa isbitaalada si aan loo haynin agabka daryeelka caafimaad ayna ka dhamaadeen dhammaan isbitaalada waaweyn ee magaalada Maqale shirka efisioni ee ka socday magaalada caasimadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho oo galay maalintii shanaad haddaba maxaa ka dhashay shirkaasi maxaase la isku diidan yahay warkeena ayaad kaga bogan doontaan dalka Shiinaha oo soo magacaabay ergey cusub u soo magacaabay geeska Afrika haddaba ergeygaasi muxuu ka qaban doonaa geeska Afrika oo sanadihii ugu dambeeyay ay saameeyeen colaadaha iyo isku dhacyada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkana subscribe saar like share tan raaci si uu u gaaro saaxiibadana kaleeto mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda dalka Itoobiya oo maalmihii ugu dambeysay ka socday xuduudda u dhaxaysa deegaanka Canfarta iyo midka Axmaarada ay la leedahay Tigreegu ayaa wuxuu u muuqdaa wali inuu sii socdo iyadoo maalmihii ugu dambeysay dagaalada aad u ba'an ay ka socdeen agagaarka magaalada Abala oo xad deegaanka oo ka tirsan deegaanka Canfarta magaalada Abala ayaa wali xaaladeedu ay deganeen tan iyo intii TPLF ay ka baxeen deegaanka Canfarta iyadoo dagaaladu ay si isdaba joog ay ka dhacayeen halkaasi magaalada Abala duleedkeeda ayay dagaaladu si isdaba joog ay maalmihii ugu dambeysay ay ka socdeen waxaana dagaaladaasi ay u dhaxeeyeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Canfarta oo iskarabsanaya iyo kuwa TPLF oo ka soo horjeeda ciidamada dawladda ayaa waxay sheegeen in halkaasi ay ku jabiyeen xogagii soo weeraray ama xogagii dulmiga waday ee ka socday deegaanka Tigreega halka TPLF-na ay sheegeen in cashir aad u fiican ay u dhigeen ciidamada dawladda iyo kuwa Canfarta ee iskarabsanayay Tigreega ayaa marar badan waxay sheegeen in magaalada Abala iyo nawaaxigeeda dhamaanba ay leeyihiin deegaanka shacabka gobolka Tigreega iyadoo ay sheegeen in dagaaladu ay wali sii socon doonaan inta ay ka xoreynayaan cadawga ku habsaday magaalada Abala waa ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Canfarta dagaalada dhamaanba ka socda xadka ay Tigreega la leeyihiin Canfarta iyo Axmaarada ayaa waxay sheegeen in ay waa Tigreega ay sheegeen in ay dhamaanba dhulkaasi ay leeyihiin dadka shacabka gobolka Tigreega halka Axmaarada iyo Canfartuna ay sheegeen in ay ayagu ay leeyihiin ayna yihiin kuwa dulmiga wada ee soo duulay ciidamada Tigreega ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin qaran oo degdeg ah wuxuuna ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in dalka Itoobiya dhibaatada ka taagan lagu soo afjari karo wada hadal qaran iyadoo uu sheegay dhammaanba dhinacyadu in ay diyaar u soo noqdaan in wada hadal lagu dhameeyo xaaladaha ka taagan dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dadka u dhow ayaa waxay sheegaan in afka uu ka sheego uusan diyaar u ahayn in wada hadal lala furo xogaga TPLF iyo dhamaanba ururada mucaaradka ra'iisul wasaaraha ayaa marar badan wuxuu ku soo celceliyaa in dalka Itoobiya dib u heshiisiin ama dawladda Itoobiya waa maamulkiisa ay diyaar u yihiin in dib u heshiisiin la furo ayna soo dhaweynayaan in
wadahadal la furo dhammaanba dhinacyada diidan sistamka federalismkana ay diyaar u yihiin in ay kasoo qayb galaan shirka dib u heshiisiinta qaranka ee dalka Itoobiya ee lagu soo afjarayo colaadaha ka taagan dalka Itoobiya. afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa wuxuu sheegay in diyaaradaha droniska ee dalka Itoobiya ay dhibaato ba'an ku hayaan shacabka gobolka Tigreega wuxuuna sheegay in maalinba maalinta ka dambayso diyaaraduhu ay sii xoojinayaan duqeymaha ay ka fulinayaan deegaanka Tigreega wuxuuna sheegay Getachew Reda in diyaaradaha droniska ay ku dhinteen in ka badan 50 qof saddexdii maalin ee ugu dambeysay. Getachew Reda ayaa wuxuu sheegay in diyaaradaha droniska ee duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ay u baahan tahay beesha caalamku inay dib u eegaan ayna lalana beegsanayo shacabka rayidka ee ku sugan deegaanka Tigreega. Getachew Reda ayaa wuxuu ku soo celceliyay in diyaaradaha droniska ee dalka Itoobiya ay dhibaato aad u fara badan ay gaarsiiyeen shacabka gobolka Tigreega ayna eeganaynin meelaha ay duuqeynayaan ayna inta badan ba ay la beegsanayaan shacab rayid oo waxba kala ogeyn. afhayeenka Tigreega ayaa wuxuu sheegay in deegaamaha inta badan ay diyaaraduhu ay ka fuliyaan duqeymaha ay yihiin agagaarka magaalada Shire iyo Askum wuxuuna sheegay dad aad u fara badan inay ku dhinteen halkaasi ayna fuliyeen ay dhibaatadan u geysteen diyaaradaha droniska ee duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya. gudoomiyaha gobolka Tigreega waa hogaamiyaha gobolka Tigreega Debresom ayaa wuxuu sheegay oo u sharaxay warbaahin laga leeyahay dalka Mareykanka sababta ay uga soo baxeen deegaamada Canfarta iyo Axmaarada wuxuuna hogaamiyaha markii koobaad u sharaxaad aad u fiican uu ka bixiyay sababta ay uga soo baxeen deegaamadii ay gacanta ku hayeen ee ka tirsanaa deegaanka Axmaarada iyo midka Canfarta. hogaamiyaha ayaa wuxuu sheegay in ay kala kulmeen cadaadis aad u weyn Mareykanka iyo Canada iyo UK ayna ku khasbeen inay ka baxaan deegaamadaasi wuxuuna sheegay in ay u sahlanayd inay qabtaan ama ay galaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. hogaamiyaha ayaa wuxuu sheegay in lagu khasbay in ay ka laabtaan ayna u laabtaan deegaankooda ayna ka baxaan dhammaanba deegaamadii ay gacanta ku hayeen ayna soo gelin caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya halka dowladda federaalka Itoobiyana ay sheegtay in ay xoog uga saareen xooga ku haystay deegaamada Canfarta iyo Axmaarada. dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxay sheegtay in ay jab weyn u geysteen ciidamadii ku sugnaa halkaasi ciidamadii ka soo horjeeday dowladda federaalka Itoobiya waa ciidamada Tigreega iyo kuwa Oola waxayna sheegeen inay dhammaanba fariisiimihii ay halkaasi ka qoteen inay cagta mariyeen halka TPLFna ay sheegeen in dowladda Mareykanka ay xushmeeyeen iyo xulufada u wata Mareykankaba ayna ku qasbeen inay dib u laabtaan ayna ka laabtaan deegaamadii ay gacanta ku hayeen. Debresom ayaa wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka iyo Canada iyo UK ay ku qasbeen ayna sheegeen in ay wada hadal gali doonaan ayna hawshan la soo afjari doono ayna dib uga laabtaan deegaamada ay gacanta ku hayaan ama deegaamada Axmaarada iyo midka Canfarta weeye. Debresom ayaa markii si koobaad u sharaxay warbaahinta caalamiga ee laga leeyahay dalka Mareykanka isagoo sheegay in ay u fududahay hadda naftirkeeda inay dib u noqdaan ayna qabsadaan dhammaan deegaamadii ay gacanta ku hayeen ayna caasimadda Addis Ababa aysan la ahayn qabashadeeda. isbitaalada waaweyn ee magaalada Maqale ee deegaanka caasimadda deegaanka Tigreega ayaa laga soo sheegayaa in ay qarka u saarayeen in albaabada la iskugu dhufto iyadoo diyaaradaha droniska dalka Itoobiyana ay duqeymo ba'an wali ay ka wadaan oo dhaawaca iyo dadka ay waxyeeladu soo gaareen loola cararaya isbitaaladaasi halka dhakhaatiirta waaweyn ee isbitaaladaasi ka howlgalana ay sheegeen inaysan haynin wax agab caafimaad oo ay ku howlgalaan waxayna sheegeen in loo baahan yahay si degdeg ah in la soo gaaro shacabka ku sugan deegaanka Tigreega oo khaasatan caasimadda Maqale ee deegaanka Tigreega. shirkii looga arinsanayay arrimaha doorashooyinka ee ka socday magaalada Muqdisho oo maalintii shanaad galay iyadoo qodobada dhammaanba aad moodid in la isku soo dhawaaday hase yeeshee qodobka amniga doorashooyinka la isku mari laayahay waxaana maamul goboleedyada ay la kala safteen labada dhinac iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyay in lagu wareejiyo dhammaanba amniga dalka Soomaaliya halka maamul goboleedyada qaarkoodna ay sheegeen inay taasi aysan macquul ahayn ayna jirin meel uu ka soo galo ra'iisul wasaaraha in lagu wareejiyo amniga dalka Soomaaliya.
madaxda maamul goboleedyada ayaa la kala saftay labada dhinac iyadoo maamul goboleedyada qaarkood ay soo jeediyeen in dhammaanba amniga dalka Soomaaliya lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble halka dhinaca kalena ay sheegeen in taasi macquul aysan ahayn ayna dastuurku uusan sheegaynin arrintaasi ra'iisul wasaaraha ayaa maalmihii ugu dambeysayba isagoo ka helaya ra'iisul wasaaraha oo garab ka helaya dhinacyada maamul goboleedyada qaarkood iyo dhammaanba musharaxiinta ayaa wuxuu sheegay in ay doorasho la qaban karin inta uu madaxweynaha uu maamulayo arrimaha amniga dalka Soomaaliya wuxuuna ra'iisul wasaaruhu u sheegay in 27 December ay uu xafiiskiisa si afgambi ah loogu soo weeraray ayna soo weerareen ciidamo ka amar qaata madaxweynaha dalka Soomaaliya waa madaxweynihii hore waa sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha ayaa u gogol xaarhaya in lagu wareejiyo dhammaanba amniga dalka Soomaaliya haddaba sidee noqon kartaa xaaladdu hadduu ra'iisul wasaaruhu uu sidaa ku adkaysto sharciga dastuurka Soomaaliya muxuu ka qabaa arrintaasi maxayse adiga dhageystay ay kula tahay daawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka haynay intaasi ayuu ku egyahay warka xiga intaan ka gaarayna waxaan idinka tagaynaa guul iyo gobonimo